magaalada Oslo ee cariga Norway ayuu maalnimadii Jimcaha ee taariikhdu ay 7 bisha Maarso oo ka dhacay dibadbax aad u ballaaran. dibadbaxan oo bilaabmay salaada Jimcaha markii la tukaday kadib ayay dadku uga cabanayeen xiritaanka 6 nin oo Soomaali ah oo lagu xirxiray dalalka Norway iyo Sweden, kuwaas oo mid ka mid ah wali u xiran yahay dawladda Norway. nimanka la xirxiray oo goobo ganacsi ku lahaa magaalooyinka Stockholm iyo Oslo ayaa lagu eedeeyay inay lacaga taageera u direen dagaalyahanka Al-Shabaab oo ah xoogag hubaysan oo dagaalo kula jira ciidamada Itoobiyaanka ee ku sugan dalka Soomaaliya. dadkii ka qayb qaadanayay dibadbaxan oo socod dheer ku soo maray bartamaha magaalada Oslo ayaa ugu dambeyntii socodkooda ku hakiyay afaafka hore ee aqalka loo yaqaan Stortinget oo fadhi u ah baarlamaanka dalka Norway. waxayna dadkaasi iyagoo cabiraya dareenkooda ku wajahan talaabada ay qaadeen booliska dalka Norway fidsadeen dhulka mariyo uu qof walba ku riday wixii lacag uu awoodayay. dadkan ayaa waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay taageeraan walaalahooda ku dhibaataysan dalka Soomaaliya ayna diri doonaan lacagaha ay ku taageeraan dadkooda iyo dalkooda xataa haddii qaarkood uu xirxiran yahay hadda. dibadbaxayaasha oo ahaa bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Norway gaar ahaan kuwa degan magaalada Oslo iyo agagaarkooda ayaa qof walba oo ka mid ah waxa uu muujiyay sida uu dareenkiisu yahay, waxaana ay eedda dusha ka saareen dawladda Itoobiya oo ay ku tilmaameen inay aasaas u tahay dhibaatada aan dhammaadka lahayn ee dalka Soomaaliya. si kastaba ha ahaatee dadkii isu soo baxay oo shucuurtooda ay aad u sareysay ayaa waxay ku dhawaaqayeen erayo liddi ku ah dawladda Itoobiya iyo dawladda Mareykanka oo ay ku eedeeyeen inay dagaal aan geedna loogu soo gabanin ku soo qaadeen dalka Soomaaliya. ka qayb qaatayaashii banaanbaxan oo si aad loo soo agaasimay socodkoodana ka soo bilaabay xaafadda loo yaqaan Garoland oo ay dadka Soomaaliyeed aad u degan yihiin ayaa waxaa qof walba uu cabirkiisa u muujiyay si gaar ah. mid ka mid ah dadkii Soomaaliyeed ee ka qayb galay mudaharaadka soo cabilaysa dareenkeeda ayaa waxa ay luqadda Norwegian-ka ku soo bandhigtay sida ay u aragto. Vi somaliere har levd uten et styre i 18 år, og når det endelig har kommet folk som vil ta over og gabadhan ayaa waxay isweydiisay sababta loo xirxiray dadkan iyada oo tiri wadanka Soomaaliya waxa uu ku jiray in ka badan 17 sano dhibaato lixaad leh. markii ay yimaadeen dad u istaago oo ka hor istaaga dhibaatadaasna waxa dagaalkii ka soo qayb qaatay wadanka Mareykanka iyo Itoobiya. dhibaato ma laha ayay tiri taas, balse waxay isweydiisay waxa ay u xiran yihiin nimanka Soomaaliyeed ee lagu qabtay dalalka Norway iyo Sweden iyadoo isweydiinaysa halka ay dhibaatadu ka jirto. si kastaba ha ahaatee dadkii isugu soo baxay banaanbaxan ayaa mid walba waxa uu muujinayay dareenkiisa ku wajahan dhibaatada haysata dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan qurbaha iyo gudahaba, waxaana ay kulligoodba dhaleecaynta dusha uga tuurayeen ciidamada Itoobiyaanka iyo dawladda Itoobiya ee dalka Soomaaliya ku soo duushay. Universal TV, Umar Abdi Afay, Umar Shino, Oslo, Norway.